mid ka mid ah xildhibaanada waqtigooda uu dhamaaday ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ee Dinsoor sida warkani uu inoogu soo diray Baydhabo wariyaheena Maxamed Deeqsi aadan xasan xuseen waa mid ka mid ah xildhibaanada waqtigooda dhamaaday ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay doorashadii shalay ka dhacday degmada Dinsoor kaasi oo lagu doortay gudoomiye ku-xigeen ee degmadaasi aadan ayaa sheegay inay soo dhaweeyaan doorashadaasi doorasho oo ka qanacsana bulshada meelo degan deegaanadana eedan ka qanacayno ya meelo ku dhiiday way ka faraxsanaa maamulka Lansuubi degmada Dinsoor in badan degmada Dinsoor waliba aan baahnaay tay maamul oo yo hadooradaayeen shacabka degan in badan eedan ka taama jareen waana deegaanada kumid ee haytay oo noqotaantana ka daaytay maamul dhisada saniyalka talaha dhaafin nasiib inaan weeldana qaabka doorashadan dheedii waa qaab dawladaysan qaab shacabkana ka ganacsanyi horumarsho in nabadiyo iyo walwalbiyo ka deero koran iyo meel ku dhiidi eedahan dhawaaye ee maamulka cusub oo degmada Dinsoor weelatay waa arin aman dheer la filay in ummadaas Lansuubi dawladii hore iyo leen ku baahanay ku habsanti maamulkan hata la suubi shacabka ka ganacsanyin deegaanada Koonfur Galbeedna may baasi eedan taageeran waan han dhawaaya doorashadaasi si halaaleen dhiidi doorashadaasi sharci dawladnimo ka dhisan oo bulshada horumarsha iyo rabitaanka yeelata ka deeri korto meenka baaqasan shacabka ijaaliyada degmada Dinsoor meenka baaqanaha fursad hata galantiyo ka jirta way helena maamul iyo galantiyo ka dooradayaan way helena dawlad oo ku wardheegasan heleen sida maamul goboleedka madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed robooda degmooyinka ku dhiyow baahooyinka la ka dabool kormay waa in maamul galantiyo ka dhisadaan lankiyo lukooyana talooyin oo ku jeesida koranaha waliba tali ka caawiyaa qofka hadii isku seeda markii dhibaatay maahina wal oo han kordhiyo male aan ka amnisho way baaha halasaada laakiin hada dawladii hasuubsideen maamul iyo hasuubsideen may kala sii dheertaa Dinsoor in gabruha xuquuqdiyo si toos ah heleen oo tuman gabrood ito tumiko kuriyeen in meel langna ngara korno wal oo basari in langna jiifada korno dhanka horumarsho iyo amnisho raali ku maamul yor la kooyan in hatana marka taas ayaa may rajeeyay degmooyinka kale iniyo oo maamulkaas oo kale lan dhisa waa baahin qaban iniyo maamulkaas oo kale la geeysi waa hay'ad iyo maamul goboleedka sida wasiirka arrimaha gudaha dadaalka isu ku jeeysiday eeda may bank mahadnaga meel walba nasaas helan ku saaranta degmooyinka uu qabateen ka daayay baahadiyo silin dabool ni adkaatay hata way wal taliyo la kooyan hadii walka dhisayaan may qabay walwalbayo oo baahanyin iniyo aktiyo ku helayaan heedo may baan surniina maamulkii wanaagsan oo shaqeeyo shacabin shaqeeyo iniyo oo yoona garab suriyaan yoba heegan Maxamed Deeqsi SBS TV magaalada Baydhabo.